بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحابتا dhamaantiin waa idin salaam meel kastoo adduunka aad ka joogtiin soo dhawaada janalka Faizy's World. maanta videogeena waxaan noogu hayaa sida titleka aad soo aragteenbo challenge 7 days waxa waaye whitening mask isbuuc la isticmaalayo mask waxa waaye yani oo wajigiina wax badan ka bedeli doonto maasha Allah. maskadan inta asxaabta waxaan kusoo qoray challenge 7 days يعني waxaa ugu talagalay maalin kasta in la isticmaalo ilaa iyo isbuuc waxyaabaha aan ka sameynay 5 shay waaye shantoodan waxa waaye whitening ay wada leeyihiin wajiga way cadeynayaan 5 shay oo waxaan ka sameynayaa oo simple aad iyo aad u fudud mask scrubna way asxaabta maskada inta isticmaalaysid waxa waaye scrubna ma u baahnid la inno scrubkeedana way wadataa maasha Allah. waxa waaye markii aad marsatid oo wajiga ay ku qalasho waxa waaye massage kula sameynay sida scrubki camal mask kasta oo whitening ahna waxa waaye massage lagu sameeyaa maskada marka isbuuc gudihiisa wajigiina waa yaabisin maasha Allah. waji wuxuu noqonayaa cadaan badan oo dhalaal badan oo qurux badan liish wajigana baby kaaga dhigaysaa waxa waaye anti aging waaye maasha Allah. isbuucaas isticmaalaysiin waxa waaye waa cajabaysiin waalidin weydi doona insha Allah wajigiina quruxdiisa iyo dhalaalkiisa maasha Allah tabarakallah in jawaabta idinka keeni doontiin asxaabta insha Allah. marka challenge waaye oo 7 days waxaan rabaa insha Allah isbuuc ina isticmaashiin waxa ku soo aragtiin commentiga anagu soo qortiin insha Allah. marka waxaan idin leeyahay asxaabta soo dhawaada videoga like dhaha like tan hilmaamina like badan oo saar videoga insha Allah. aad iyo aad ugu mahadsantiin haddii anagu cusub tahay oo marka ugu horeysa aan soo booqatan oo kusoo dhaweynaya gacmo furan kusoo dhawow channelka subscribe dhaho gambaleelka furo si videoyaasha cusub markii aan soo gelino si toos ay kugu soo dhacaan insha Allah. aad iyo aad ugu mahadsantiin soo dhawaada marka asxaabteeda qaaliga waatan asxaabta alaabta isticmaalayno alaab aad iyo aad u fudud waaye oo guryaheena wada taalo waxaa meeshaan marka hore aan ku haystaa bataati ama baradhada hal xabo waaye waa soo hoolayaa baradhada waxaa uga baahannahay biyaheedan ka isticmaalaynaa insha Allah. hal xabo baradho waaye oo yacni aadna u weyneyn aadna u yaraan dhexdhexaad marka halkaas xabo baradhada isticmaalaynaa biyaheedan ka qaadanaynaa insha Allah. haddana waatana asxaabta baradhada markii aan soo hoolay baaquligan yarkaan kusoo shubtay marka baradhada biyaheeda la uga baahannahay inteeda kale ma u baahnin waxaan ka isticmaalaynaa bas biyaheeda. haddana waan bilaabanaynaa alaabteena waa isku dhex darsanaynaa. marka hore baaquliga waxaan kusoo shubanayaa xumas 2 qaado oo xumas shiidan 2 qaado oo waaweyn oo xumas shiidan waaye. waxaan kale u baahannahay isticmaalaynaa 2 qaado oo caano booro caano booraha isticmaalayna waxa waaye asxaabta caano niido laakiin caano booraha markaas idinka idin yaala isticmaali kartiin. waxaan kaloo isticmaalayaa waraango ama nasha ama cornflour oo idina 2 qaado 2 qaado waaweyn oo waraango alaabta asxaabta maanta isticmaalayna waxa waaye alaab oo kulligeed wada whitening waxa waaye waraangada wajiga aad u qurxisaa way cadeynaysaa way jiidaysaa maasha Allah. sidoo kale xumaskan waxa waaye whitening uu leeyahay wajiga waa cadeynaya lamco siinaya waa dhalaalinaya maasha Allah. caano boorahana asna saas waaye maasha Allah wajiga aad u qurxiyaa wuu cadeeyaa. sidoo kale waxaan isticmaalaynaa liin dhanaanta iyo xumaskana markii oo la isku daro maasha Allah tabarakallah whitening oo cajiib ah ay sameynayaan. marka asxaabta alaabteena maanta kulligood waxa waaye alaab oo wada whitening oo wajiga madmadow ka qaadayso oo dhalaalinayso oo cadeynayso qurxinayso maasha Allah. haddana waxaan kusoo darsanaynaa biyaha oo baradhada maaskadeena marka wax kale ma ku qasanayna waxaan ku qasanaynaa biyahaas oo baradhada biyaha waa kuwana asxaabta baaquligaana iigu jiraan markii oo soo miiray intaasaa iiga soo baxday marka hadda waxaan ku qasanaynaa maaskada baaquliga waxa oo hoos iigu haray oon kusoo shubaayna waxa waaye asxaabta baradhada nashadeeda waaye baradhada waxa waaye nashay leedahay nashadaasitood maasha Allah iyadana whitening ay leedahay nashadaas waaye marka hadda wax baaquliga ku hara oon kusoo shubaayo ama waraango. haddana waxaan kusoo darayaa liin dhanaan qaadada yarta oo liin dhanaan waa isku qasayaa marka si fiican aan isugu qasayaa si fiican aan isku dhex gelinayaa. maasha Allah waata asxaabta maaskada markii aan isku qasay oo si fiican isugu qasay sidaas quruxda badan inoo soo baxday maaska waxay ku soo baxday aad u qurux badan oo creamy yacni si qiyaas waa u qasay wax biyo ma ku darin bas waxaa ku qasay bataatiga biyihiisa ama baradhada biyaheedan ku qasay maasha Allah tabarakallah saas inoo soo baxday quruxdaas inoo soo baxday. gabdhaha liinta ay dhimayso oo liinta isticmaali karin
liinta bedelkeeda waxay isticmaalayaan biyaha ubaxa laakiin haddii liinta ay ku dhibaynin muhiim waaye liinta la ino xamaska ama shumburada iyo liinta way isla shaqeeyaan yani white inay sameynayaan marka muhiim waaye in lagu darsado liin dhanaantana waa aragteen waxaan soo isticmaalnay hal qaado oo yar ah marka liinta in lagu darsado waaye waxaa kale kusoo darayaa saliid wax yar oo saliid ah saliidda isticmaalayaan waxaa waaye saliid jiniin qamax saliid ka samaysan waaye qamadiga saliidda haddaa helaysiin maasha allah aad iyo aad ay u fiican tahay haddii kale saliidda looska saliidda qumbaha waa u isticmaali kartiin waa ku darsan kartiin gabdhaha laakiin wejiga saliidda leh saliidda way iska dhaafayaan inta kale isticmaalayaan haddana waxaa ugu dambeeya kusoo daraya vitamin E oil 3 dhibcood 4 dhibcood meelahaasaan kusoo daraya oo vitamin E oil ah vitamin E oil haddii aad isticmaalina vitamin E capsule oo ku bedelan kartiin labadoodaba isku sii u shaqeeyaan marka waxaa kusoo darayaa vitamin E oil oo 3 dhibcood 4 dhibcood meelahaasaan kusoo daraya insha allah haddana si fiican isugu qasaaya si fiican isku dhexgelinayaa si fiican isugu qasaaya خلاص يا أصحابتي مركان يتود ماسك ذينا دياري نوتهاي ما شاء الله وحيكو صباح هذا ماسك آدي أدو قروح بدن سموث ناعم ما شاء الله ماسك هذا مركا هرمك استعمالينو وحاسوغينا هذه 2 دقيقة 3 دقيقة ميلاسا سوغينا لأنه وحال ربا حمسكا أما شمبوردا إن بيها بردادا أو سفيعا قدها أو قلو إلين أنان سفيعا يقدها أو قلان مركو حاسوغينا إلا 3 دقيقة كدبا استعمالينا إن شاء الله استعمالkeedan waxa wajigaaga nadiif ah isticmaalaysa waa marinaysa si fiican u marinay wajiga markaa marisidna waxa qoortina ku dirtid waa ilaa in si oo wajigaaga iyo qoortaada isku ekaadaan waxa u sugaysaa ilaa ay kaaga qalalayso markii ay qalashana masaaj kula sameynaysa si fiican masaaj ula sameynaysa masaajkan inuu ahaado waay masaaj khafiif ah gacanta inaa ku xoojisid ma aha la inuu skinka wajiga waxa waaye khafiif waay xoog in loo sheegto ma fiicno si tartiib ah masaaj kula sameynay kadibna biyo caadi ah ku dhaqaysaa ما شاء الله وجهك مركل لقى دقنا ويا بس وجهك سأسكت بدل قروح دي السيء النعومة دي السيء دلال كيسة يعني مركو جورا استعماشين بس لمركو أركيسين اسبدلك هدي أسبوع لو ذا نوع عجبيسين يعني وجهك سأسكت بدله مركو كذا أصحابته واحد الله هاي تجابية سمست إن شاء الله مالك استنا استعماله إلا أسبوع وحكو أركتين إن شاء الله كومنتي نوق سوقرة ما دام هذا عيد يسوع دوات عيد وحير كلمة تاي إن شاء الله وحاربنا أنا سفيع عن إسكاك شقينا وجهك تمها جركة gacmaha lugaha maaskada marka asxaabta waxaan rajeynayaa inaad dhamaantiin aad ka wada heli doontiin wax badan ay wajigiina ay ka bedeli doonto insha Allah wixii aad ku aragtiin commentiga noogu soo qor insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin walaalahayga qaaliga ila socodkiina iyo daawashadiina quruxda badan sidoo kale commentiyaashiina aad ku quruxda badan oo ay soo qortiin oo ducadii amaanta leh aad iyo aad kaga mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay jazaakumullahu alf khayr إن شاء الله وحنا بلن فيديو قدام وحنا إذا كنت جاية خير بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.